waxaan su'aasha ugu dambayso ahayd ninkii ugu dambeeyay oo waa mucaarad ma weliga ahaanay Soomaaliya su'aashaada waxaad u hartay waxaan umaleynaa madaxweyne ma isku qabiiltiin markii hore wuxuu waa ku taageersanahay because ari isu bedelin moogtaa raashiya biri ariga isu bedelin doodaas waa jirtaa waxyaalaha experience iyo qabsada inii sheega markii hore madaxweyne horka ku mucaarad ahaa dadkii qabiilkiisa waa iga soo horjeedeen waxay u haysteen in madaxweynaha qabiil isku haysan maadaama markaan Ohio tagay madaxweynaha hore dadkiisa u badan kulli waxa dhaanay waa ku qaldano waxaan u haysanay madaxweynaha qabiil uga soo horjeedo haddana waxa u maleeyahay ninka madaxweynaha jawhar baan u hiiliyo rabaa waa dareensanahay macnihi waa mid aan fahamsanahay laakiin aniga waxaan u taaganahay waa principle waa aragti xashaq nin iga saaxiibsan oo iga dhow lama arko waa isla soo halganay dariiq adaga isla marnay sanadaan la shaqeeyay laakiin maalintii oo ka leexday wadadii aan isku ogeyn aniga principle-kayga isma bedelo isku dhici ugu horeeyay waliba anoo ergay wuxuu ka bilowdaa inii sheegaa waa markuu la xabadeeyay dadkii u mudaaraadayay generaalkii la soo xiri jiray magaciisa muxuu ahaa sheeg madaxweynaha dagaal meeshii ugu horeed waxaa iri dadka la mudaaraadayay la xabadeeyay waxay dhaamaan lama arko 19 February markii la xabadeynayay adigana habeenkii almaa'ido ku jirto xabada kugu socotay subaxii anagana la xabadeynayay oo yuhuud maatiin aan lahayn waxay dhaantay lama arko way jaarin jigare wuxuu yiri isku mid maaha shaqo isku ma leh saysan isku lahayn dad mudaaraada la xabadeeyay way marka principle-ka dastuurka hadduu ku tumanayo hadduu leeyahay dowlad goboleedyada shaqo kuma lihi ima qosayeen haddii maqayn haddii joogaan haddii dalka la kala maqan yahay inay shaqo kuma lihi dastuurka iska bedelaya baarlamaankii xukuumadda waa isku milaya garsoorkii waxa dhaanay hoos tagaan dhaqankaas waa kan diidnay marka xashaq inaan isku cidnahay farmaajana aan kala cidnahay macnaheedu maaha inaan ka yeelayo tan waxaan u taaganahay waxa waa principle waay haddaad ileedahay principle-kaaga isbedelay oo waxa u taagneeda isbedelay waa ijaalo jigray kartaa laakiin madaxweynihii hore markaa mucaaradaysan waa ku raacsanay kana hadda raalli kaama ihi hadalka hadduu saas u dhacaayo aniga ilama saxsana laakiin waxaad ugu jaalo jigraysaa maxaa isikay bedelay principle-kaan u taagnaa maxaa isikay bedelay taas kaliya ugu jaalo jigray kartaa haddaad haysa ahlan wasahlan oo idhahdaan niyow shalay waxaad difaacaysa 1 2 3 4 maanta wixii aad difaacayso principle-kii waxa u taagneeda ka leexata hadda leedahay markaas waa iga gar helaysaa haddii ay ahayn waxaad principle iga leexatay tolnimo tahayne dhimala aniga hadii madaxweynaha ku tolaanahay laakiin waa toosinaynaa because waxa la yiri unsur aqaaka zaliman oo madluuman saxaabada waa weydiiyeen see walaalka u qabanay waaba garanay dheen markii oo asaga laga gardaran yahay ina u hiilisee markuu gardaran yahay see u hiilinay gacanta la qabanay nabiga wuxuu yiri gacanta la qabana anaga madaxweynaha waxaan haynaa gacanta waay meesha oo dalka ka ridi rabane meel runtii meeshii hore ka liidata waay runta inuu sheega meel meeshii hore ka liidata waay meesha dalka uu wada hadeerta because waxa loo wadaa in cid dawladda madax ka ila aqoonayaan ku dhamaarna hadeerta oo hay'adii dawladda dalka gudihiisa ku bursadaan oo ciidamada isdagaalayaan maalin walba oo leeyahay ciidankii dawladda isdagaalay hay'adii dawladda isdagaalay wasiiradii dawladda isku jawaabay agaasimayaasha dawladda isku jawaabay who is in charge ya wax madaxa la garlaaya hadeerta dalkii wax kastana laga dhigay qof kasta inuu ka macaasho dadkii la barakicinaya ugu badnaa wax dhacay maaha aniga marka hadda ka shaqeynayay abaaraha IDPs-kii aan la tacaalayna kuwa ka badan hadda sameysay xiriir cusub la sameeyay hadeerta oo IDPs ah oo dad barakacayaal ah fiir qofka markuu dalkiisa gudihiisa ku barakaco duruufaha ku kaliftay ogow qof jecel mal inuu meel barakac ku noolaado maxaa dawladda loogu talagalay inay dibdejin u sameyso حتى هذه دولك الدولة كسر قال للجل وأنا ذلك الود جيا مهندم كحقه إليه هو إنه هذا لكن إن نيجي عسلا وملتمية دولك اللي جي يبيو ذلك كان اللي جاب بركة أيوه هذا كورة عسنت هاي تصوات ظلمي أي بيبيع عسل إلا أبو رصح معها وذلك مساكين تاعي كسر قحيد بريها الدولة اللي ينادوا بحا كان عسنتها العقل جالس هنا أي جينا بناك اللي هو بقول كنت تكوني طلبات تكوني سديت تكوني لا بقول كل كراسيستو ذلك حقوق إليه المواطنين واحد وقلب
maxaad soo baxay 10 canshuur iyo 10 company oo isdaba socoto oo subax ilaahay keen ku dhaysa lacag ka rabna hal mid oo kamid ah qasan dawladda isku dhacay ana xildhibaan ay budget waa leeyahay miisaaniyada ha waxa la qaadaa meel ku dhacaan ma naqaan meel aadan ma inaan ka aamusnaan aragtay oo nidhaano madaxweynaha saaxiibkiisa tay ka qalay waxba kala hadlin maya nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri gacanta faadumo wuxuu yiri tan haday xataa gacanteeda oo goynayo faadumo waa gabadhiis marka Soomaalida waxa meeshaan dhigo ugu miiso waxa cadaalad darro waa dadku haday cadaalad helaan ayaga toosahay ma u baahna wax kale marka anaga waxana deeqo maxaa waaye cadaaladana deeqda marka waa inaan cadaalad u wada istiraaf gareyna waa inaan u wada dirirnaa kana igu tolo iyo kana igu qabiili iyo kana ilma adeernahay iyo ma jiraan wixii horaan ku soo nacnay waxaas dad iska CDB oo dhagoolayaal oo maanta oo dhan ku madaxweynahana qaran oo saan yeelay kuwaas waa ku soo daalin CDB cusub ma xamili karno hada ama sintii